السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كحيران فاتوش سو دوالا channel كداونسي وفاتوش channel يس وجنال كان عصب إن شاء الله سبسكرايب صار حتى نقول عصب تاي كمبلال كان فرو كومنت تقد شارتي لايك تنا كهل مامن هدي برنامج كيه شيت فكرة هذا سي أنكو أجانا إن شاء الله هذا بقى السؤال أدل يسوي دي سؤال صح يعني فاتوش قبله يسوي ديان المهاجة iskuulka waqtigee ku geysaa bari iskuulka ilmaha ma igula talin lahayd inaan 3 jirkayga 4 jirkayga iskuulka geeyo yani waa la walwalaya ma fahmaysaa iskuulka inaan geeyo maxay u dhibaysaa marka mawduucaas ayaa maanta noo saaran hooyooyinku waxaan ku codsanayaa idinkuna waxa aad ka aaminsantihiin fikradda soo waxay because hooyooyin badan waxa laga yaabaa cunugeedii koowaad inuu yahay cunugii labaad inuu yahay inay qaarkooda dana leeyihiin inay yacni rabaan cunugii luqadiisii ama siyaabahaas uga fikirayaan uga baqayaan marka aniguna siyaabaha ilmaha aan iskuulka markay dhiganayaan aan uga taxadaro oo make sure garay luqadoodii iyo dhaqankoodii iyo wixii aan sameeyay inaan wadaaga hadii laadmo soo hadaba aniga ahaantayda faatuush ahaan aniga ilmahayga labada ii waaweyn buu waxaan geeyay ayagoo yaryar I remember waxaan ku bilawnay head start guriga ayaan ugu la imaan jiray oo head start ayaan guriga ku dhigan jirnay ayuu yiriisa oo qaarkood xataa 9 bilood yihiin marka dad badan baa ka cabsada waa arki jiray waalidiin badan ayaa ka cabsada inay ilmaha iskuulka geeyaan especially iskuulka iska daaya in qof kale oo ajnabi ah oo gurigaaga imaado yacni ilmaha wax baro because waa dareemi kartaa qof jecel ma lahan adduunka qof jecel ma lahan in gurigiisii privacy-ga loogu imaado oo haddana qof uu ilmahaaga laakiin anigu markii aan saas sameeyay waxaan make sure gareeyay markii aan head start ilmahayga ku bilaabay in waxaan sameyn jiray aniga ready baa u ahaan jira soo waxa laga yaabaa cunuga macallimada ku imaanaysa inta xaqaas macallimadii asaga isla tuurtid inuu saas cunugaayo ku dayacmo in saas lagaaga helo ila badan waxyaabo badan lagaaga helo soo marka taas ayaan dowri jiray markaan head start dhigan jirnay head start waxaa jira asagoo classroom-na waa aadi jirnay asagoo gurigana waa aadi jirnay ma fahmaysaa soo ayagoo yan baa ku bilaabi jiray oo xataa dad qaar waxay weydiin faadi maxaa iskuulka u geynaysaa ilmaha ayagoo yaryar maxaa luqad iyo waxaas ugu waxaysbaan no luqad ma aha because waxa waaye aniga u rabi jiray in qof aniga ahayn ay arkaan aniga oo ku kormeeraya oo wax baraya ama wax u keenaya ama waxyaabaha loogu keenayo inay yacni outside aniga qof ahayn ay arkaan aniga baa u rabay because waad ogtihiin wax laga dhuudhuuman kala mar reality-ga waa cunugaaga inuu dadka la dhaqmi karo inuu banaanka u bixi doono inuu macallimiin arki doono inuu iskuul dhigan doono soo wax aan ku huraynin inaa ka gagambati ma aha haddii xataa aad taa diidaysid ogow luuqadan English kaliya waaye xataa wadankeeni banaanka u waxaysid still cunugaaga waa inaa u prepare garaysaa outside world waa inaa u prepare garaysaa banaanka inuu dad arki doono xataa luuqadaada hadday ku hadlaan maxaa ogtaa wax uga imaan kara soo adiga waalid ahaan ayaa laga rabaa inaa u diyaarisid in cunugaaga dadka kale la kulmo marka waxaan sameyn jiray subaxdii alisay aan soo kaca cuntadaan karsana wixii aan karsan lahaa karsana waxaan rabaa saacadooda iskuul inaan isla dhiganayna camal ka soo qaadi jiray aniga la fariisan jiray cuntadayda iyo wax kasta iyo qadadooda inta u diyaarsado waqtigayga ugu firaaqada fiican awal iska jalgaraysto ayay naagta rooga dhulka markay fariisano u goglo anigana dhulka ayaan la fariisan jiray nuucay ula ciyaarta ayaan ula ciyaari jiray ila yaabi jirta macallimad kale ayaan noqonaa because cunugaaga waxaa la rabaa the best inaa u samayso laakiin hooyo haddaa aad tahay rabto inay suugo iyo qalalac iyo taleefon iyo qawow iyo xagga aada markay macallimadii imaatay you're not ready that's why you don't need cunug qof inaa gurigaaga keensid because macallimadii maxay arkay inaad hooyo diyaarsan aad ahayn inaan qof wax adiga raba cunugiis inuu barto aad ahayn taleefon iskaga dhagan cunto iska karsanaysa digsi ku waxaysan qaylinaya qaaq dhulka intaan la fariiso saacadda ay nala joogto aniga ayada isku si ayaa wax u bari jirnay isku si no chance because waxaan diidaa ayadana chance u diidaa cunugaygu waa rabaa inuu ayada la interact garayo oo la hadlo oo la waxeeyo laakiin I am the number 1 teacher because awalba anaa number 1 macallin u ahaan jiray soma marka ay baxaysan albaabkan ka saarayna haye bye aan dhahayna cunugiyo toy helay wax bartay loo keenay ciyaaray markii classroom-ka aadi jirnay waxaan sameyn jiray bilay iyo waxaas noo balay aniguna waa aadi jiray waa raaci jiray waa u tagi jiray waa la soo waxaan jiray waa la ciyaari jiray marka hooyo haddii aad tahay sidaas sameyn karta
it's good for you cunugaaga inuu aado samayn karta maxay tahay war cunug kasta hadduu iskuul ku aadayo you have to get ready you have to know adigana inaa macallimad tahay oo macallimad kaloo diyaarsan aad tahay laakiin iska bax boorsada un iska qaada adiga waa silce ilmahaagana waxa waaye diyaar ma aha marka so that's why iskuulka dhan uu aniga easy igu ahaa because aniga ayaa physical laftirkaygaaba diyaar u ahaa oo diyaar markaa wax u tahay oo cunugaagii garab ordayso oo cunugaagii hortaagan tahay waxa waaye waxba kaama dhibaayo ma fahmi so markii hadda ay ii aadeen before corona waaye because coronadii dadka la soo fariistaan ilmaha corona markuu bilaabanay aniga ilmahaygu waxay aadi jireen pre-school caadi ah Minnesota ee aadi jireen maxaan sameyn jiray kuma halin jiray macallimiinta waxaan sameyn jiray caadi bari wakaas way yaryar yihiin subaxdii markii la qaado haddana waxa la soo pick up gareynay kaba soo qaad 7 markaa geeyno 7:30 meelaas 8 ay galaaska galayaan isla markii 2:30 waa inaan soo qaada oo diyaar u tahay maxaan sameyn jiray waxaan sameyn jiray before aanan soo qaadinin ayaa macallimada balansan jiray macallin kasta markii aan u baahanaa wiigi ayaan taxi gareynaa waxaan leeyahay maanta waxaan rabaa inaan cunugayga classroomkiisa imaado lunchiga ma inay imaan karaa you see because I want to know waxay cunugayga barayaan I want to know waxay cunugayga sameynaa maalin waa iska taxi gareynaa waxaan ku dhahay hey I want to maanta inaan 30 minute volunteer gareema sameyn karaa galaaska cunugayga yes baa leedahay waa tagaa warqadaha iska jira cunugaygan waj gareena inuu cunto cunaayo waxa uu sameynaa anoo iska dhigaynin asaga oo imaaday anoo cunugi isku dhadhajinayn baa macallimiintii miisaskooda meelahaas inta iska tagaa warqado iska hagaagsana wax baa iska sameynaa just volunteer waa kula talinaa waalidiinta weligaa macallimada ka codso markuu cunugaaga yaryahay haddii aa waqti haysa classroomkiisa inaa ka volunteer gareys adoo cunuga inta activity isku dhadhajinayn wayaabi jiray waxa dhigi jiray Fatima ilmaha markii waalidiintooda kala imaado qaaq way qaylinay way ku dhagaayeen because you know cunuga somehow waa inaa strongarnimo bartaa ah inuu dadka kala anaa ku encourage garay ilmaha inay dadka kala la dhaqmaan that's why is iga daba dhadhageen ma fahmi anaa ku encourage garay guriga marka cunuga kula soo hadashay aad tira glass baa ku jirtaa maamii way ku imaanay xagaas glass waa okay wixii caadi uga dhigto cunugii ma argagaxayo cunugii adig kuguma dhiganaanayo taas waa ilmuhu la sasaan marka ogow wixii adiga passion kaaga aad u jeceshahay cunugaaga inaa u dirto easy miyay cabsi ugu jirtaa oo ah luqadayda inuu hilmaamayo in cunugii time badan uu igala soo spend gareynayo dadkaas in uu cunugii dhaqankaygii iyo Soomaaliga uu ku adkaanayo yes cabsidaas hooyo kasta ku jirta aniga igu jirta qof kasta igu jirta hooyooyinka kala mid ahay laakiin waxaan ogaada reality inay tahay meel aan la hori doonin xataa wadankeeda aad iskuul buu aadaya yes luqadaaday ku hadla but they are still strangers you see strangers why dadka u diraysa isna oo brotherka sisterka guri kula joog dad islaameed baa cunuga u diraa maanta wax ii soo bara wax ii waxay macallin oo dugsi iige quraan ii ku dhig you have to get ready for that baby because cunugaagi markasta waa inaad la talisaa waa inaad akhlaaqiyin u dhistaa waa inaad dadka strangerka waxa uga imaan kara inaad uga digtaa baadhigiisa jirkiisa wixii si loo ilaalsan adigoo quraan u aqriyo every morning قرآن باكو أخرياب إلهه يحفظ أديك حفظ بكوس إلهي بحفظين كر أنا كم حفظين كره لكن you have to get ready سيدي فاتوش سيدي ما تدك وعصا بيو عصا سيدا أصبح إسكالك من لكن وحلا إسكو دافع وحوا يو أديك لفتر كاج إن الديار أطهي وحبر الشدة واي إن تهاي واي هو يو عنق يدي كورق قبيسة أديك dadkan istusayda ila fargiigsanta faabisa xaaskar isfaatu kala la iska waxa caleera hey I need to volunteer you know macallimid waxay ogaanaysaa inaan qof yacni ya soo jeeda aad tahay oo cunugteeda wax kasta ku dhacay markas inta la soo cali jir maanta amiira waxay samaysay iyadoo ordaysay dhacday maanta because iskuulka tagayano cunugteeda daqranada inay baxar la sama soo la sooca saanaan ku sameynay xagaan geynay way kuftay balay garoonku way ka booday way ka dhacday waxaas dhan lagu lama communicate gareynayo haddii aad ahayn hooyo yaa indhaha shidatay soo indhaha ina macallimada u shidataan raba adigoo istusaynin inay indhuhu ku shidayeen yacni xad iska dhigaysano macallimadii bri iskuul hadda cunuga geystay hafta inaa ka warqabto hey maanta lunch ma imaan kara cunugayga waqtiga qadada yes baa lagu dhahay ma soo volunteer gareyn karaa ha classroomka hadhow ma soo noqon karaa yes laguma diidayo soo marka adigoo deentaad tiraadid laga dareemay wixii ilaalinaysa dham xaq u dhacanaya ya dhaysi waxa la rabaa ya ilmahana markay iskuulka aadayaan bara akhlaaqda la taliya heer waxay gaareen ilmahayga alxamdulillah taan baro
sida cunugteeda markay 3 year ahayd diaper may ku jirin tan hadda preschool ma gelinay 3 year half 3 year bay ku jireen diaper because 1 year 2 year and half baa uga jira bas waxaan dhahaa musqusha macallimadu ogtay ilmaha waxay ku dhex taala classroom nugta waxaan ku dhahaa musqusha ma ka gashin adiga la iska kala gareynaysa qofna musqushaada soo garin albaabka xiro adiga la iska kala saan nugta bare nugti macallimadu marka rabtay inay raacdo waxay ku leeyahay hey this private ya jack musqusha laga xiranaa macallimadu ii sheegay waxay ugu tiri private waaye musqushina way iga xiratay maxaan sameeyay waa yes baan ku ir daafici diaper bay qabaan bay ku tiri ma sha Allah يده يعني ما شاء الله متقاني أنا هوسكر أو ما شاء الله حتى ويجا حرتها ويجا حرتها تروح يقولي أنا أسكلين كرين مسكوش إذا سكسو قري سو مرك عذار لجاربة عنق مركي ويري هاي أنا ياد ودستد أوجاتد إن الدنيا كله وقري أنا هذا إسكر إجن عادية عنق 3 year 3 and half عنق هتو صنحان صنين عنق عافما دقوا ما شاء الله إن هذا ككره حتى عنق دوجري حتى وإن ستيل ودي ده شيء بركي كبدش كي يعني كجويسة صار بركي إن كسي بدشي عنق هذا مركو وصن برقبين أو مسقوش أصيب وآده مركو كله وكيس سنتاي ويكف ضده because you know عنقاجي واد أكتر أسرع مسوش إسكوا حين أسرع هذا سنة أسرع يعني إصدبره لكن مركو عنق دايبر كوي هاي أو 3 year هاي أو من 3 and half دايبر قبه هذه قوة أتكان إن الجيسد ما موين كشقية أو الشقة كأذي وكو أذكر عنقودي إن أنت كم قناعان لكن أذي عنقاجي أنتوا سنو دايبر كتشرو وحنتا مركب تلاضيد واحد هاي عادي وسكول كواد جين كرتا لكن عضو وأنا ديار تهاي أو جك أتاي أو أدق واحد كست أكتاي أنت كلنا دوا إلهي بنبرة تكرينا أدق دياليسي قرآن كود وآخرني الصباح المركب بحان مدح القرآن أو تفيسيد إن إلهي كاجا حفتيو شرط بنانك دوا كاسا اسكت دارنا وفتوش أو ده فكرة هذه ريري اسكراك كيسو تورنا يسمرك سبسكرايب صار برنامجك ويوينك أسديس دوا أنفعيا وحيابها نقول نير جرينتان ده وصي الشارع كره دي له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.